like saar page-ka Somali Brothers si aad u hesho macluumaad fara badan. sidoo kale share garee videoga oo nagu reeb fikirkaaga dhanka hoose ee faallooyinka. waad mahadsantahay. waa kuma Maxamed Yuusuf Khan oo loo garan ogyahay Dilip Kumar. Dilip Kumar waxa uu dhashay 10ka bishii December sanadkii 1922 sida ay qortay wargeyska Times of India. laakiin warbaahinada kale qaarkood waxay taariikhda dhalashadiisa ku tilmaamayaan 11ka December oo ah maalintii xigtay. Kumar waxa uu ku dhashay magaalada Peshawar ee dalka Pakistan ka hor inta uusan la bixin magaca uu caanka ku yahay ee Dilip Kumar. waxa magaciisa dhabta uu ahaa Maxamed Yuusuf Khan. Kumar waa jilaagii ugu horreeyay ee lagu daahfuray abaalmarinta tooraha ugu wanaagsan sanadka la siiyo ee Hindiya Filmfare, waana atooraha ugu badan ee ku guuleystay biladan. sidoo kale waxaa loo yaqaanaa ninkii Hindiya baray habka jilista filimada. dadka qaar waxa ay ku qeexaan inuu yahay khaankii ugu horreeyay ee Hindiya. sidoo kalena waxa ay ku tilmaamaan ninkii Hindiya geeyay hanaanka jilista filimada ee loo yaqaano method acting. habkaas oo ah qorsheynta ku aadan diyaarinta qofka jilaaga ah, tababarkiisa iyo qoondaynta doorka uu ka jilayo filimka. waxa markii ugu horreysay soo hindisay habkan jilaa sidoo kale filim sameeye Russian ah kaas oo lagu magacaabo Konstantin Stanislavski. Kumar waxa uu sanadkii 1944 ka soo muuqday filimkiisii ugu horreeyay oo lagu magacaabo Jawar Bahata. xirfadiisa jilista filimada oo socotay muddo 50 sano ah wuxuu uga qayb qaatay ilaa 65 filim. filimadiisa ugu caansan waxaa ka mid ahaa Andas 1949, Babul 1950, Dedar 1951, Dag 1952, Devdas 1955 iyo filimo kale oo fara badan sida Mughal e Azam 1960. sanadkii 1955 Kumar waxa uu u qaaday jacayl aktarishadii weynida India ee lagu naanaysi jiray Venuska fanka India Madhubala intii uu socday duubista filimkii Tarana. sidoo kale waxa uu xiriirkoodu sii socday ilaa muddo 6 sano ah ilaa dacwadii maxkamadda ee filimkii Naya Daur, taas oo uu Kumar ku markhaati furay kana soo horjeestay Madhubala iyo aabaheed isaga oo la saftay dhinaca kale, taas oo sababtay burburka xiriirkoodii jacayl. sidoo kale mar kale dib uma wada shaqayn Kumar iyo Madhubala kadib filimkii Mughal e Azam ee 1960. sanadkii 1966 Kumar waxa uu guursaday atarishada Saira Banu oo ka yareed 22 sano. kadib wuxuu guursaday Asma Sahiba oo ahayd xaaskiisa labaad sanadkii 1981. guurkaasi wuxuu ku soo dhamaaday furiin Janaayo 1983. intaas kadib waxa uu la noolaa xaaskiisii koowaad oo kaliya Saira Banu. Dilip Kumar ma uusan dhalin wax carruur ah gabi ahaanba. sanadkii 1976 ayuu Kumar fasax 5 sano ah ka qaatay jilista filimada, wuxuuna dib ugu soo laabtay filim jilista 1981 filim lagu magacaabo Karanti. intaas kadib waxa uu sii waday xirfadiisa wuxuuna ka soo muuqday filimo kale oo fara badan sida Shakti 1982, Mashal 1984, Karma 1800, Karma 1986. filimkiisii ugu dambeeyay uu duubo waxa uu duubay sanadkii 1998 markaas uu ka fariistay jilista filimada. jilista filimada Kasoko wuxuu ahaa siyaasi mar xubin ka soo noqday baarlamaanka dalka India. dhanka kale Kumar waxa uu si fiican ugu hadli jiray luqado fara badan sida Urdu, Hindi, Punjabi, Marathi, English, Bengali, Gujarati, Pashto, Persian iyo lahjado kale oo fara badan. Kumar waxa si weyn loogu tixgeliyay inuu yahay mid ka mid ah jilayaashii ugu fiicnaa taariikhda sinimada India. waxa uu galay World Guinness Record buugga dhacdooyinka adduunka, taas oo ku galay inuu ku guuleystay tirada ugu badan ee abaalmarinta la siiyo jilaa Indian ah. 2 jeer ayaa geeridiisa la isla dhex maray. tan iyo markii uu dilaacay fayraska corona waxa Kumar ku jiray feejignaan uu isaga ilaalinayay xanuunkaas galaaftay dadka waayeelada u badan. bishii Maarch ee sanadkan xilligii uu caalamka saameynta ku yeeshay fayraska corona
ayuu Dilip sheegay inuu galay karantiil uu isaga ilaalinayo xanuunka coronavirus. Jilaagan ruqcadaaga ah 2 jeer ayaa looga faafiyey warar been abuur ah oo ku saabsan inuu geeriyooday. Marka koowaad waxa ay ahayd sanadkii 2016 kadib markii uu isbitaalka loola cararay isagoo ka cabanaya xanuun iyo qandho ka hor dhalashadiisii 94aad. Marka labaadna ee wararka geeridiisa ku saabsan ee been abuurka ah la faafiyey waxay ahayd bishii Agoosto sanadkii xigay ee 2017 xilligaas oo mar labaad isbitaal loola cararay isagoo la xanuunsan biyaha oo jirkiisa ka dhammaaday iyo dhibaatooyin kale. Aslam Khan oo ahaa Dilip walaalkiis waxa uu geeriyooday 21kii bishii Agoosto 2020 halka Ehsan Khan oo isagana ah walaalkood uu geeriyooday 2dii bishii Sebtembar ee 2020. Maantana waxaa geeriyooday walaalkoodii weynaa ee Dilip Kumar iyo toorihii ugu weynaa taariikhda India. Intaas waxaan ku soo koobaynaa barnaamijkeena taariikhda Dilip Kumar. Waad ku mahadsantahay daawashadaada.